dagaalka ka socdo inta u dhaxaysa degmada Mahada iyo Cali Fooldheere oo qaatay ku dhawaada bil ayaa waxaa dadaalo lagu bixiyay sidii loo soo afjari lahaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa dadaalo ka waday toddobaadyadii la soo dhaafay duqaan cirka iyo dhulka ayaa ku socotay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay xaaladane haatan waxay u muuqataa inay ku guuldareysteen ciidanka xoogga dalka diyaaradda biriqdaar oo dalka Turkiga laga leeyahay ayaa duqeyn aan kala joogsi lahayn ka wado deegaanka ciidka waxaa la soo tabinayaa inay ciidanka admis ku biireen dagaalka ka socdo ciidka oo u dhaxeeyo degmada Mahada iyo Cali Fooldheere sidoo kale waxaa shalay degmada Mahada laga dejiyay ciidan si gaar ah u tababaran isla markaana loogu talagalay burburinta goobaha ay galaan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale goobaha ay ciidanka geli karin kooxda ku go'doonsan deegaanka ciidka ayaa gaaraysa 300 oo xubnood sida aan ka soo xiganay saraakiisha ciidanka sidoo kale waxa ay sheegeen saraakiishu in 9 horjooge lagu dilay deegaanka Jembilow ama ciidka kooxdana ayaa godada dheer ka qodatay deegaanka ciidka gaar ahaan dhulka hawdka ah taasi oo sababtay in howlgalka uu dheeraado markii la soo gabagabeeyo howlgalka waxaa la filayaa in halkaasi uu gaariyo taliyaha ciidanka dhulka gaashaanle Dayax Cabdi Cabdulle oo hadda ku sugan deegaanka Biyacade ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ayaana halkaasi kula hadli doono ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka si uu u dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo muddo toddobaadyo ah halkaasi howlgalka ka waday taliyaha ayaa kormeeri doono saldhigyada ay ciidanka ku leeyihiin deegaanka Biyacade iyo degmada Mahada asigoo halkaasi ka sii wadi doono abaabulka dagaal ee ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka u diyaarsan yihiin si deegaanada Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe looga saari lahaa